Tababaraha kooxda kubadda cagta AC Milan Gennaro Gattuso ayaa xaqiijiyay in Gonzalo Higuain uu go'aansado inuu ka dhaqaaqo kooxda Rossoneri si uu ugu biiro kooxda Chelsea suuqa kala iibsiga bishan Janaayo oo hadda furan. Waxaa dhawaanahan jiray warar ku aadan in kooxda reer London ee Chelsea ay doonayso in Higuain ay ku qaadato heshiis amaah ah ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan sababo la xiriira hoos u dhac weyn ee ku yimid qaab ciyaareedka Alvaro Morata si la mid ah Olivier Giroud. Gennaro Gattuso ayaa kadib guushii ay ka gaareen kooxda Sampdoria kulankii xalay ay ku wada ciyaareen Coppa Italia waxa uu yiri Gonzalo Higuain waxa inaga dhaxeeya xiriir aad u fiican balse marka uu ciyaaryahanku gaaro go'aan way adag tahay inaad ka dhaadhiciso inuu ka laabto. Ilaa iyo haatan Higuain weli waa ciyaaryahan ka tirsan AC Milan laakiin ma aqaano waxa dhici doona. Waxaan si aad u doonayaa inuu halkan nala sii joogo isla markaana sameeyo sida uu had iyo jeer sameeyo ilaa daqiiqada ugu dambeysa. Si kastaba ha ahaatee ciyaaryahankan reer Argentina ee milkiyadiisu ay leedahay kooxda kubadda cagta Juventus ama hadda ku jooga Milan ayaa hadda la leeyahay waxa uu go'aan ku gaaray in Chelsea uu iska xaadiriyo si uu u xirto maaliyadda blogga ah ee kooxdaasi Blues.